labadii kun laga soo bilaabay ilaa 2012 12 sano oo dawladda isxigxiga oo ku meel gaar ah dalka ay soo mareen dawladahaasi caqabado waaweyn si badan ay kor yimid laakiin mid walba dawladnimada waxbay ku kordhisay mid walba dawladnimada meeshii ay joogtay meelay uga sii sikisay haddaanay wada sikin qaybo dawladnimada ka mid ah ayay horumar ka gaartay waxayse 2012 waa markii ugu horeysay ee dalkeena gudihiisa horta doorasho ay ka dhacday safarka carta ka soo bilowday imbagaati ku xigay jowhar ku xigay baydhabo ku soo xigay markii dambe muqdisho caasimadda jamhuuriyadda yimiday ayaa 2012 soo gabagaboobay markii ugu horeysay baarlamaanka Soomaaliyeed gudaha Soomaaliya lagu doorto madaxweyne Soomaaliyeed gudaha Soomaaliya lagu doorto dawlad aan ku meel gaar ahayna la dhiso ayay ahayd horumar iyo guul runtii aad iyo aad u weyn oo 12 sano ee ka horeysay shaqadii la soo qabtay mira dhalkeeda ah ayay ahayd xoogagii siyaasadeed ee biriga jiray waxay aad iyo aad ugu qanceen xigmadii ahayd shimbirkii duulay hawada maraa irsaaqadiisa dhulkay taala waa inuu soo degaa meel kasta dal dibad hadaad soo warwareegto meesha ugu dambayso waa Soomaaliya iyo talada in Soomaaliya la keeno marka 12kii wixii ka dambeeyay dawladda ku meel gaarka waa ka baxday macaamilkeena caalamiga waa hagaagay dadka Soomaaliyeed iyo intii siyaasiyiinta biriga joogtayna waxay u guntadeen dawladnimada safarkii ka soo bilowday carta ee aan sheegayay ee markii dambe iskool bulisiya ku soo gabagaboobay halkaas inta laga wado Soomaaliya geeskaas in la gaarsiiyo waa lagu shaqeeyay maamulada maanta jira ayaa ku dhismay xukunkiya ku baahay laakiin safarku wali ma dhamaanin safarku Kismaayo iyo Baydhabo iyo Jowhar iyo Dhuusamareeb iyo Garoowe inuu ku ekaado maahan inuu ka sii tago oo waxa la rabaa degmada uu sii gaaro oo tuulada uu sii gaaro oo ceelka maxaan ku iraahdaa geereena uu biyaha ka cabo uu sii gaaro oo tuulada xeebta ku taal kalluumaysatada ay degantaa ay sii gaarto talada ay wax ku yeeshaan oo ay ka taliyaan halkaas safarka marka wali waa socdaa ma dhamaanin safarkii wali waa socdaa ma dhamaanin waxaan rajaynaynaa talaabta hadda la qaaday ee nidaamkan xisbiyada badan ah inuu yahay midkii sahlaya safarkaasi inuu si dulka u dhamaado oo meeshaas tago dalka qaarkiisna tijaa anagu Soomaali hadaan nahay sideenaba ama xuduudda banaankeeda aan ku noolaano ama xuduudda gudaheeda aan ku noolaano kalama fogin kalamana aadna uma kala aragti duwan tijaabooyin badan ay jiro Soomaaliland case ah oo tijaabo ah oo doorashooyinka iyo nidaamka ay sameysay iyo baahinta xukunka sida ilaa heer degmo ay u gaarsiiyeen tajribo la qaadan karo oo nool oo taagan oo Soomaali leedahay waa deganaanshiyaha iyo nabadda ka qaadashay leedahay Puntland oo ayadana ku xigtaa sidoo kale ah iyadana deganaanshaha iyo nabadda iyo maxaan ku iraahdaa horumarinta ka qaadashay way aragnimo ka qaadashay leedahay tajribooyin aan qabnaa oo Soomaaliyeed kuwa xuduudda banaankiisa ku nool wanaaga ay sameeyeen ayaa ka qaadashada laftiisa dawlado dad Soomaaliyeed oo dawlado kale ka tirsanaa jiro laakiin afkii Soomaaliya ku dhaqan galay xeerarkooda iyo qawaaniintooda af Soomaali ku qoran yahay oo aan wax badan oo way aragnimo ah si aan u soo gaabino safarka muxuu ahay fog oo aan rabno inaan dhameystirno waxaan rabnaa marka walaalayaal Soomaaliya kala maaranto dawladnimo kuma kala maaranto hal dal inay noqoto kuma kala maaranto iskaashi haday hal dal wada ahayn xataa iskaashi iska warqab inay gobolkan geeska Afrika ee aan ku noolnahay ay kaga noolaato kuma kala maaranto xisbiga nabadda midowga nabadda iyo horumarkana mabaadida u taagan yahay waa intaas labada waxyaabood ee dadka Soomaalida ay ka siman yihiin ee mideeya dadka Soomaalida qabiilka kama simin isku qabiil baahin qabiilkayga mugli imaado hoosal si aada si kala qabiil aan noqonayna aniga iyo kan dad ii xiga waa si kala soconayna laakiin laba waxyaabood oo dhammaanteen ka simannahan leena labada waxyaabood oo aan ka simannahay Soomaali meel kasta ay joogto waa diinta Islaamka inaan dad muslimiin nahay on sunniyiin nahay on shaafiiciyiin nahay Soomaali gees meesha joogto waa ka simannahay so diinta Islaamka waa aaliyad aan leenahay
إلهي هبن نوسي وحكلون كسي منه وضلنا هي نجد حي سومالي نمده أفك سومالي عن نجد حي بقى كسو جريك أو سومالي عن نجد حي موقال كان وحول بان عن كلنا عن نجد حي سيداس درادي دين الإسلام iyo wadaniyada Soomaalinimada ku salaysan waa labada waxyaabood oo aan leenahay inkastoo naloo dhaxgalay oo la isku day in lagu kala qaybiyo diintii la dhaxgalay oo la isku day in lagu kala qaybiyo adikuna kooxda saatiin kuwana waa kuwa maxaan ku raadahay sarwaalka gaabsado kuwa waa kuwa garka xirto kuwa waa kuwa duubka saan u duubtana la yiri haddana intaasaan ka bilaysanahay islaamnimada sunninimada shaaficinimada barashada quraanka oo caalamka in badan wadamada muslimiinta aan caam uga nahay tahfiidul quraan iyo ilaalintiisa caalamka islaamka waa uga tilmaamanahay Soomaali hadana waa ku midaysanahay ku dhaqankeeda iyo ilaalinteeda iyo horumarinteeda arin aad iyo aad muhiim oo waay afka Soomaaliga iyo wadaniyada Soomaalinimada ah iyaduna waa waxa kale aan ka midaysanahay oo inaan waxaynu u baahan Soomaalidu waxay ku maamaadaan calool waxay ku bukootay laguma daaweeyo dawladeennii qarankii Soomaaliyeed ee 30 sano soo jiray markii aan kala furfuraynay ee aan kala qaadaynay waxaan tuulkii aaliyadii aan ku kala furfurnay wuxuu ahaa qabiil ciidamadii qabiil ka dhignay maamulkii dawladdan qabiilaynay gobolladii qabiil u kala bixinay oon siyaasadaynay hadda waa qabiilka siyaasadda loo adeegsadaan ka hadlayaaye qabiilkii muxuu ahay reer hebel waa xoolo beeleen ha loo xoolo gooyo iyo agoonta maanta ha loo dhaamiyo iyo beerta ha loo goobiyo iyo la dhahayo wanaagga badnaayo social mujtamaca uu ku dhaqnay maaha midka siyaasadaysan waa tuul aan ku kala furfurno dawladdii waxaan ka dhignay qabiilka nasiib darro maanta haddana waxaan joognaa tuulka aan dawladnimada ku dhisayn inaan dhahno waa qabiilkii waana dhibaatadii culayska wax nagu hayo qayb weyn ka yahay qabiilka siyaasiga ah marka xisbiye siyaasi ah inaan maanta aan ku riyoonno oo aan abuurno oo aan jirsiino oo aan isku raacno meeshaan xisbiye badan oo jira muxuu ahay madaxdoodii maanta ay ka hadashay araadooda iyo mabaadidooda iyo maxaan ku raadaay aragtidooda fog dad badan oo Soomaaliyeed ku qancay ilaa xisbigu ma samaysmi lahayn haddaan dad lahayn sidaas marka in aragti dalka sidaana u fiican iyo maya sidaana u fiican safarkeenu sidaanu ku soo gaaba kara si nabad ah maya ee sida in lagu tartamo oo ra'yi lagu tartamo oo dalka wanaaggaanaan annagu gaarsiinaynaa lagu tartamo oo dadka Soomaaliyeed laga dhaadhiciyo waxa waaye waa cusub oo Soomaali u bariyo oo fursadiisa la waay waxaan maanta u baahanahay marka inaan ku mashquulno waxyaabaha yaryarka ah ee nooga dhiman arrintaasaan u baahanahay inaan ku mashquulno ma aha arrimaha yani na dhaafayo waxaan na dhaafay nidaamka doorashooyinku nama dhaafayo weligiis waa nala joogaya dastuurkeena dalka uu yeelanayo nagama tegayo waa nala joogaa mar walba nidaamka amni ee dalkan uu qaadanayo ee dadka Soomaaliyeed ay ku qanacsan yihiin waa wax ayadana nala joogayo weligeed naga tegaynin oo inaan mar walba sii horumarino u baahan nidaamka garsoorka ee dalkan uu yeelanayo cadaaladda waa sidoo kale waa wax mar walba nala joogayo oo maalin walba in la sii qurxiyo u baahan cilaaqaadka dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada oo la xadido si sharci ah oo si sharciyeysan lagu waadaxa lagu dhiga meel waa waxa ayadana u baahnaa weligeed aan naga tegayn maxaa dawladda dhexe u gaar ah maxaa dawlad goboleedka u gaar ah maxaa ka dhaxeeyo oo inay ka wada tashadaan oo ka wada heshiiyaan u baahan waa waxa aan naga tegayn ayadoo howlahaas aad iyo aad u faraha badan oo weligeed nala joogayo mahar iyo habeen inaan ka shaqeyno aan u baahannahay ayaa laga yaabaa waxyaabo kale oo ahdaaf ah oo na gudbayo naga tegayo inaan ku mashquulo laga yaabaa marka waxaan ku boorinayaa xisbiyada siyaasadda kuwa jira iyo kuwa soo socda wadada ku soo jira ee mar dhow jiri doona in ay ku mashquulaan waxa istiraatiijiga ah ee dalkan iyo dadkiisaba dhaxal reebka u noqon karo oo hagaajin karo waxaan qabaa ku kalsoonahay Soomaaliya haddii mar caqabadan yarta ee wareegaysa ee muxuu ahay ay ka dhaxbaxdo
ay banaanka u baxdo oo deganaanshiyo siyaasadeed iyo nidaam iyo dimuqraad ay hesho muddo kooban ummaduhu 30 sano 40 sano qaarkood ay uga soo kabtaan dagaalada sokeeye Soomaaliya waxaan ku kalsoonahay 10 sano inay uga soo kaban karto